أيان ويا دولتين يحكومة لغة الوالد وسيرة الورثة الوالد مولي يا وحنا من مكان سيد الدولية وعي كدولية والله سكارة كما بيستو بين في ضلال المريد أيام يدوزني من يهودا ويوضح له مروها يي مكان العالم كودي تاكتغنا يا الدولية يا عرب قبل ينوغسو فريسة أفريكان با ينوغسو واران ضوضنا وحسك عليلو وقد يدينا إيبينو. What countries make us a country? We have fulfilled all international criteria that has been required for us. وين نموتشنا الدولة نمور هكسن ولا أمين كرو. الرولة فلورة والشرع سرّي وأنا قف سرّي. ومدل قيمة بدل. أو لو صوبان دقي بوك ميسان وين كان ورمايا maanta caqabadaha inoogu adag ee bulsho ahaan in haysta oo ah sidaynu u noqonnaa qaran adduunka aqoonsan yahay jidka aqoonsiga Somaliland buugga la magac baxay ee uu maskaxdiisa ka tuujiyay Professor Cabdinaasir Ibrahim Saacadaale ugu horreyn waa bogaadinayaa waan hambalyaynayaa dadaalka uu geliyay iyo runtii قيمها وبوغاسي لي بوغاكتا waxaa lagu qiimeeyaa marna qofka qoray baa la qiimeeyaa qoraaga marna mawduuca laga qoray waxbaa la qiimeeyaa siduu uu yahay mid relevant u ah ama baahida bulshada ka turjumaya iyo aragtida iyo mucda uu doodihiisa ku salaynayo buuggan anigu waxaan akhriyay chapterka koowaad 15 chapter buu ka koobay chapterka koowaad baan qalabnimadii xoogaa ka gaarsiiyay chapterkaasoo ka warramaya siyaasadda suuqgeynta qaranka Somaliland runtii aqoon-yahanadii halkan falanqeeyay baa runtii si fiican u cabiray waxaan ka markhaati kacayaa horta marka ugu horeysa balxan baa sheegay buuggaasi luqadeennu ayuu ku qoran yahay luqad adag oo dhisan oo qiimo leh oo aan qalinkeedu la leemo lahayn dhalinyaro badan oo wax qorta baan waxaan ku arkaa buugaagtooda qalinkoodu inuu la leemo leeyahay afku ku weyd yahay hadday doonaan erayo shisheeye ku isticmaalaya aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa buuqaasi luqadda uu ku qoran yahay runtii si qiimo weyn chapterkaan akhriyey wuxuu ah chapter isku xidhan oo aan kala daadsanayn oo abbaar sugan iyo yoolka uu qoraagu ka turjumayana leh 3 tiir buu chapterkaasi ka koobnaa tiirka koowaad wuxuu ahaa baadisooc jidka Somaliland loo marayo wuxuu qoraagu u arkaa 3 tiir buu chapterka ku soo koobay ereyga baadisooc waa luqadii sax ahayd Soomaaliga Somaliland maxay tahay sumadeeda iyo sooyaalkeeda taariikheed waa maxay ma wax imika iska abuurmayba ma gobollo dalka go'ayba ma muxuu ahaayay ma waa in ay leedahay sumad iyo sooyaal taariikheed marka baadisooc maxay Somaliland tahay xaggay ka timi maxay salka ku haysaa mawduucaas uu leeyahay waa u muhiim jidka aqoonsiga baadisooc waxa weeye afka Soomaaliga ereygu waa baadi iyo sooc oo la isku daray xoolaha aynu dhaqan jiray bulshada reer miyiga baynu si loo kala garto xoolaha faraha badan ee isgaaraya ee meel wada daaqaya ila dadka waa la kala gartaa xooluhu way ka badan yihiin waa inay sumad qof walba iyo qoys waliba sumad gaar ah ama qoys waliba qoysku waa reerkaasi wuxuu leeyahay sumad gaar ah geelooda lo'dooda xoolahooda waxa lagu gartaa sumad gaar ah hadday ka luntana waa lagu baadisoocaa baadidaasaa lagu gartaa haddii ay meel marayaan saasa xoolaa lagu kala sooca marka baadisooca Somaliland
وإن أين إيبنا أي قراغ ليه هاي سؤال لو حيتها يالكي كتير دودا سوا دود تغن وأبار سوغن دوداسي ما المهيلو ويدي دولة إسرائيل ناقوستي وحنا دغيستي دad Soomaaliyeed oo badan oo falanqo iyo doodo iyo difaac iyo wareysiyo ku jira dadka bulshada Soomaalida isku dar doodaha waa in kaga adkaado hadday tahay siyaasiyiinteeda hadday tahay aqoon-yahanada hadday tahay qurba joogeen waa in kaga adkaado aniga aragtida dad badan oo aan ka sheekaysanana way ila qabaan su'aalo badan baan isweydiiyo weliba waxaynu ugu liidanay xitaa inteena ku jirtay hadday tahay Twitterka hadday tahay social media hadday tahay waraysiyada idaacadaha waaweyn horta waynu ka amrano ka baqano inaynu fagaarayaasha nimadno doodnaba walayna kaga badnaa ragayna la doodaya dood luxdanba may wadin waxay ku doodayaan dood aad u jaban oo aynu burin karno oo buugga iyo kii xalay la soo dhigayba la soo bandhigay ka hadlaya aqoonsiga waa doodaha ay jabinayaan waxayna baadiso caasa ka mid ah mid walba wuxuu ka bilaabayay dhalinyaradeyna markaad eegto waana la xasuuqay gaar baanu la soo noqonay Somaliland qodobada ugu luxdan dimuqraadiyad baanu qaadanay waxbaanu qabsanay yes waa sax laakiin war baadiso ay la weynayno kan xaggay Somaliland ka timid maxay ahaan jirtay sawirkeebay lahayd dunidu yaa dunka waa la xiisaynaya horto imaka badeecada uu ku metelay baa waxay muujinaysaa badeecadu xagee ka timid warshadee soo saartay warshadan goorma la aasasay yaa lahaan jiray waxa soo dhan baa deem garanaysa taasi mid bay arrinta labaadna tiirka labaadna wuxuu ka dhigay tiirka danaha Somaliland si ay jidka aqoonsiga uga baxdo waa inay dano dunidu maanta sadaqad waxba iskuma siiso sharci wax iskuma siiso waa ta dalbadalku doonay weerarayo ee go'aamadii qaramada midoobay la nasakhayo war dunidu waxaa ma qiimayso waa runtii qoraaga waxa dunidu maanta waa material dano wina dana iibisa danahaasna dana nin kale iibin maysidee danaha waa la isku guraya adiga oo kaliya lagu danayn maayo laakiin dano isdhex galay dana isweydaarsiya dana la wadaago baa dunida nolosheedu salka ku haysa taana si fiican buu cabiraya qodobka saddexaad waxa weeye saameyn buu bixiyo sidaynu danahan iyo baadiso labadaba u iibinaa waxaan aad uga helay aragti ganacsigu aad isticmaalayo Somaliland shirkad ganacsigu ka soo qaaday qarankii wuxuu Somaliland waa shirkad tayo leh oo aan suuq caalami haysan baladinku tibacda aad u eega waa shirkad tayo leh oo aan suuq ganacsi oo fiican haysan waxaad haysaa waa wax wanaagsan adduunkuna wuu baahayay laakiin wuu ka dhagalay sidaynu markaa u gudbinaynaa fariimaha anigu intaasaan maanta ka akhriyay aad baan ula dhacay waa bogaadinayaa waana waxaynu u baahannahay inaynu maanta waxa weeye aynu muxuu ahaaye aynu xoog saaro Somaliland waxay u baahan tahay siyaasad suuban sabir ballaaran kasbashada saaxiibo badan qorshayaal aan surmaseegta lahayn iyo inaynu samaysano cudud cadowgeenu ka soo ayaynu u baahannahay duruufahaasaynu kaga gudbi karaa maanta midnimo wada jir danaha guud iyo arrimaha qarankaynu dhinac uga soo wada jeesano inaynu dhisno qaran wanaagsan oo fiican oo adduunku u arki karo wuxuu isku hadlay haddaynu doonayna in layna maalgashado haddaynu doonayna inaynu dana iibino waa inaynu muujinaa dowladnimo wanaagsan oo la aamini karo oo ruula fuloole oo sharcigu sarreeyo oo aanu qofku sarreeyo oo cid waliba waxay doonaysa aanay yeeli karin waa inaynu dunida ka iibinaa ummad isku mida oo isku aragtiya وين مدة تصنع شقادة قرن كان ويبلارنتي
وحن قضاء سياسيين iyo xukuumadda markaa xilka haysa war shaqadani keligeed uma taalo waa shaqo ballaaran oo u baahan inaynu isku xirno dabcan xukuumadda markaa talada haysa mixwarka iyada ah oo laga doonaya inay waxaasoo dhan isku ciyaarsiiso waxaan leeyahay aqoon-yahanada war bugaagta la akhriya doorahana ku dhiirada oo qarankeena aan iibino oo wasiir iyo laba wasiir iyo xukuumad iyo dhowr siyaasi ha ku halayn in qarankeena iibiyaan oo baraha bulshada ku gambar ugu soo fadhiista oo ku dhiirada ya maalmo dhaweyd baan aad ula yaabay war ummadaha Soomaalida qowmiyadda Soomaalida dadka u turjumaani jiray ya inaga ahaan jiray عربيين الوالي إنجليزيين الوالي وان يابايا حتى وسيلة دولة الصومالية أيان ويا دولتين يا حكومة لغة الوالي وسيلة الوالي موري يا وحنا من مكان سيد الدولية وعي كدولية والله سكارة كما بيستو بين في ضلال المريد يا أيين كرا وحنكون يا وروحي لنا قرن قرحيي شروطه دولة كدولية أيين What countries make us a country? We have fulfilled all international criteria that has been required for us. Defining territory by Lena, or حدود شرعية أصلا, permanent population by Lena. وحي Lena هاي effective government. دولة ترتاح أو شقيلة أو أمريكا عنده كويسة أيين هايسنا. ولنا وشروطها كم وعلنا capacity أينو هالشيء أو وده أينو هالشيء سكون قلبه بيننا أفضل شروط واحد من اللي قدوليس لكن واحد من إنه الدنيا يبينه واحد من إنه دولة ده هي رقم سنة أيام يدوي نبي يهودا ويوضح له منو هاي ما كانوا العالم كذي تاكتنا يجعل الدولة يدا يا عرب باقي بينهم سوفريس أفريقيا بينهم سو وران ضد وحسك عليله oo qadiyaddeena iibino oo inta yada siyaasiyiinta iyo xukuumadda uu yeeyna ku haleen aqoonyahanada walaale war banaanka ka soo baxo aqoontan aad iskuulada ka haysaan banaanka keena aad baad mahadsan